waxaa soo gabagaboobay shirkii golaha wadatashiga qaranka oo ilaa 9kii subaxnimo ee saaka ka socday xarunta ciidamada cirka ee Afasioni. shirkan waxaa furay misna gudoomiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waxaana ka qayb galay dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda. waxaana lagu wada hadlay dardargelinta iyo hirgelinta doorashooyinka qaranka oo ay asaas u yihiin heshiisyadii 17 September iyo 16 Febraayo. sidaas waxaa warbaahinta u sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cusmaan Dube. wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wuxuu xusay in shirka maanta si weyn looga dooday ajandayaasha shirka dambe ee golaha wadatashiga iyo dardargelinta doorashooyinka. waxaana uu xusay inay sii socon doonaan isla markaana la isugu soo laaban doono maalinta bari ah. warbaahinta qaybaheeda kala duwan maanta looma ogolaan inay soo tabiyaan shirka wadatashiga u furmay madaxda maamul goboleedyada iyo waliba madaxda federaalka Soomaaliya, balse wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa shaaciyay inuu soo gabagaboobay shirka maanta. Mahad Mutawakkil, Honkebel TV, Muqdisho. hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger ma haysaa حاجو تيارة سكولكي ما بقيسي هاي شارجر ما يسا شارجر ما يسا شارجر عزومة دي بنشوف عزومة دي سوق الو شارجر ما يسان ونيوم maxaa ka qaldan maanta oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa chargerna waad noo weydiinaysaa aniga hayla yaabina waxaan isticmaalaa adeega muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya waxaad isticmaali kartaa adeega muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo kaliya hadal oo hadaalin